السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبض إذا وضيال ددوينها قيمها أي قدرين تمضن إيه هو ضيق دعوانيو كسر دوادا برنامج كاني مسكح دي دوني ده. هل كان معنا وحندوني أنا يدو كسر جود بيو الشيكو أما قصة آدو حنون بدن أو كل عضي ويل الصوماليات أو قربياش تشوجا إلى الصحريري markuu ila soo xiriirayna uu ila wadaagay dhibaatadan iyo arrintan ku dhacday oo uu doonayo inuu dadka walaaladiiya uu u gudbiyo si isaga way ku dhacday aanay ugu dhicin qof kale oo walaalkiya oo uu uga digayo sheekaduna sida tan ayay ku bilaabmaysaa walaalayaal. wiilkan waa wiil Soomaaliya qurbayaasha soo galay wuxuu yiri anigoo muddo qurbaha ku nool ayaa waxaanu isbaranay gabadh Soomaaliyeed. gabadhii ayaanu is afkaranay inaanu iskuursano. gabadhii waanu iskuursanay muddo gabadhii markaan isqabnay xaamilo ayay noqotay. uur bay yeelatay. uurkii markay yeelatay gabadhii way xanuunsatay. aad bay ugu xanuunsatay. dhibaato badan baa soo gaadhay oo uurkii ka soo gaadhay. dhakhtarku markaa wuxuu dhahay 4 bilood markii ay gaadhay ee uu uurkooda 4 bilood uu ahaa in ay sariirta fuusho oo maxaan ku yiraahdaa inta ilmahaasi ka dhalanayo ay sariirta joogto shaqo aanay qabanin istaageedu aanu badnaanin in maxaan ku yiraahdaa ay just sariirta joogto si aanu ilmuhu u soo dhicin oo sariirta loogu adeego wixii ay cunayso iyo waxay qabanayso iyo wax kasta sariirta korkeeda loogu keenayo sababtooy tahay si ilmaha yar loo seef gareeyo oo ilmaha uu muddo ugu jiro caloosha oo ilmuhu u soo dhicin daraadeed baa waxa laga dhigay bed rest wax la yiraahdo in sariirta ay iska joogto. maxaan ku yiraahdaa markaa wuxuu dhahay sidii bay xaaskaygu u joogtay sariirta u joogtay laba waxaan shaqaynaya laba shaqaan ka shaqaynayay buu dhahay labadii shaqay aan ka shaqaynayay ayaan mid joojiyay. mid markaan joojiyay ayaa waxaan isku daystay inaan shaqo kaliya ka shaqeeyo iyo iyadii oo aan doonayo inaan ka shaqeeyo sababtooy tahay wuxuu yiri intaan xitaa maqanahay waxaan taray gareeyay ilaan kaligeed ba guriga joogta dhaqdhaqaaq ma jiro wax la jooga ma jiraan 8 saacadood xitaa wuxuu yiri intaan shaqada ku maqanahay inaan waxaan diiday aan kaligeed kaga tago meel Soomaalidu ku yartahay baanu joognaa iyada faamiligeedii ma jooga buu dhahay aniga faamiligeyga ma jooga buu dhahay waxaan u qabtay buu yiri gabadh Isbaanish ah oo aan inta aan maqanahay u timaado 3 saacadood oo qadada quraacda wuxuu waan u sii diyaariyaa sariirta madaxeedaan u dhigaa qadada wax u keena ayaan wuxuu u hayeer gareeyay gabadh Isbaanish oo 3 saacadood la joog oo qadadeedii waxa uu diyaari iyo maartay ka hagaaji arrimahan. marka wuxuu yiri sidii baan maaragtay gabadhii markay 7 bilood gaadhay ilmihii looga soo saaray. ma sha Allah gabadh bay dhalatay buu dhahay ilaahay ha u barakeeyo. gabadhina markaa wuxuu way caafimaaday. markii ay caafimaaday inuu ilmahayaga yaraa muddo haysano maaragtay reer isku wanaagsan oo isku barakaysan aanu noqonay buu yiri ayaa wuxuu yiri ilmo labaad haddana calool galay. ilmihii labaad markuu calool galay gabadhii maaragtay xanuuno badan baa lagu arkay dhakhtaradii ku sheegeen waxa la dhahay naftaadu waxay ku jirtaa khatar haddii ilmo dambe aad dhasho ama aad ureysto ilmo kale aad ureysto naftaadu khatar bay ku jirtaa adiga iyo ilmahaba khatar baad ku jirtiin. marka dhakhtarkii baa wuxuu yiri wuxuu ku dhahay dhalmo dambe ma jiri doonto ay gabadhani dhali karto mar dambe caafimaadkeeda daraadeed. maxaa xal ah wuxuu yiri sidii si leeg ayaa gabadhii haddana waxa laga dhigay inay bed rest noqoto oo sariirta kor joogto ilaa intuu ilmuhu ka dhalanayo ama uu 7 bilood ka gaadhayo oo laga soo saarayo. markaa wuxuu yiri ilmihii labaad baa dhashay ma sha Allah ilmihii labaadna gabadh bay noqotay. markii ay 40kii ka baxday ee inantii 40kii ka baxday dhakhtarku wuxuu yiri marka uu horeysaba ee aad 40ka ka baxdo ama aad caadada hesho waa inaad sida ugu dhaqsaha badan leh aad dhakhtarka u timaada si ilmaha lagaaga joojiyo oo aanad ilmo kale aanad qaadin. marka wuxuu dhahay arrinta halka markay noo marayso
ayaa waxaan ku yidhi buu yidhi nafta inantana wuxuu yidhi aad baan u jeclaa xaaskayga waxaan ahay nin aad iyo aad iyo aad wuxuu yidhi xaaskayga u jecel baan ahay markaa wuxuu yidhi waan la hadlay waxaan ku yidhi buu yidhi waa kii dhakhtarku inala ballamay waa kii yidhi maxaan ku idhahda waa inaad timaadaa ilmaha lagaa xidhayaa waa kaa waa inay ballan aan kuu sameeyaa oo dabadeetana aad tagtaa lagu soo xidhaa wuxuu yidhi gabadhii walaashay ahayd way diiday waxay tidhi aniga dhakhtarna ma aadaayi mana laysxoo xidhaayo wax laysku xidhana ma aqaano adigu haddaad isxidhaysa isxidh bay igu tidhi buu dhahay laakiin anigu gabadh dhakhtar u socota oo isi soo xidhaysa ma ihii raalli noqo na dhakhtarku wuxuu kuu sharaxay miyaad ilowday na dhakhtarku wuxuu ku yidhi naftaadu haddaad ilmo dambe uuraysato ma kala imanaysin adiga ruux ee ilmaha ilaahay isku kiin abuuray dhakhtarkii waa kii arrimaha noocaasa inaga dhaadhiciyey inantii wuxuu way isi soo taagtay dhakhtarkii bidix baa laga maray oo midig baa laga maray oo daawo kaliya ha lagu siiyey xitaa kiniin afka aad ka qaadanaysid ha ahaatee waa diiday wuxuu yidhi maadaama ay diiday anigu waxaan ahaa nin afkii garanaya gabadhani maaha gabadh af garanaysa markaa wuxuu yidhi dhakhtarkii ayaa anigii ila fadhiistay wuxuu yidhi gabadhan haddaanay isxidhaynin nafteeduna khatar ay ku sugan tahay adiguna aad mas-uul ka taho ninkii qabay aad tahay maxaa xalaho maxaa tala ah markaa waxaan ku yidhi buu yidhi aniga maadaama aan xaaskayga jeclahay maadaama ay 2 carruurana ii dhashay aniga ha la iga saaro maxaan ku dhahdaa dhalitaanka inaanan anigu dhalin haddaan anigu ninkan aan ahay maba rabayba ina gabadhaydu iga dhimato ma rabo waxaan doonayaa inta ilaahay noogu talagalay lifeka inaan isla qaadano marka aniga dhalitaanka ha la iga saaro xididka dhalitaanka dhakhtarkii wuxuu yidhi wareedhe ha ku degdegini dhakhtarkii markaa wuxuu yidhi ma hubtaa bal ha ku degdegin dhakhtarkii wuxuu yidhi wuxuu ii ballamiyey niman counselor la yidhaahdo oo dadka la taliya oo dadka la fadhiista oo dadka wuxuu sheega oo is yidhaahda make sure inay waxaani qofkani uu go-aankan gaadhay ay tahay wuxuu yidhi 3 bilood ayaan maalin walba oo sabti ah ku kalahayay maxaan ku dhahdaa counselor ama dadka la taliya go-aankan aan gaadhay inuu yahay go-aan ka yimi oo maaragtay aanu ka noqosho dambe male ka noqosho dambe ma laha haddii arrintaa inankaa lagu sameeyo wuxuu yidhi iyadii baan la tashaday counselorkii markay ii dhammaatay markay 3 bilood ii dhammaatay galaasyadii aan soo qaadanayay markaan soo qaatay dadkii la hadlayay markay la hadleen markii warqadii la soo waxeeyay yani iyadii la hadlay buu yidhi aan ku yidhi buu yidhi arrintaasaan doonayaa dee inaan sameeyo mar haddaad adigu dhalmadii iska xidhi weyday naftaaduna ay khatar ku jirto anaan samaynayo waa kaa laakiin dhakhtarku wuxuu yidhi waa inay xaaskaaduna kula saxiixdaa warqadahan aad saxiixayso in aanay kaa tegi doonin mustaqbalka waa inay iyaduna saxiixdaa sababtoy tay ha dhowto ma odhan karto ifur sababtoy tahay ninkani daraaddeed buu arrimahan u sameeyey marka sidee warkan waanu saxiixaynaa adaa iska saaray miya dhalmada iska ilaalinaya oo lagaa saaraya iska saarun bay ku tiri buuri waaya keen wuxuu yidhi warqadihii baanu tagnay dhakhtarkii baanu tagnay warqadihii iyaduna way saxiixday anna waa saxiixay warqadaha intaanay saxiixin baa loo akhriyey waxaa la dhahay ninkani waa ninkaagii kow arrintan adiga daraaddaabuu u sameeyey 2 kama tegi doontid oo ma codsan kartid in aad tidhaahdo hallay furo berri ood isaga cidlo kaga tagtid waa dhammaatay taas waad isla joogaysaa nafta adduunka inta idinka hadhay labadiina mid tegaayo waad isla joogaysiin keen bay tiri waayahay waa loo saxeexay wiilkii sidii baa looga saaray dhalitaankii inaanu mar dambe dhali karin wuxuu yidhi muddo markaanu sidii ahayn maaragtay muddo ay wada noolaayeen ee ilmihii u koreen ee ilmaha yagii ugu yaraa uu 7 sannadood gaadhay
ayaa wuxuu yidhi xaaskaygiisii soo taagtay ay tiri waa kulama noolaan karayo inaan dhalaan rabaa inaan dhalo iyaan rabaa ninaan dhalaynin oo hadeer toole koran ah oo sidii neef geela iska soconaya ma laba joogi karo ilmaan u baahanahay ama aan dhinta bay tiri ama aan dhulka dhaafo inaan nin kale guursadaan doonayaa aan dhalo oo soodigii warqadaha saxeexay ee yidhi maxaan ku idhaahdaaye kama tegaayo waxaas waxba kama jiraa bay tiri go-aankan u dambeeya ka qaado go-aankan ku dambeeya ka qaado kuguma dul gaboobaayo ilmo kalaan u baahanahay inaan ilmo kale dhalaan u baahanahay marka ilaahay baan tala saaranayaa saasaan ku soconaya nin kalean guursanaya oo iga dhalaaya wuxuu yidhi xaaskayga dhibaata igu bilowda waxay igu bilowday in la furo warqaday saxeexday waddanka kamana bixi karto saxeexa ay saxeexday laakiin maxay igaga baxday buu dhahay labadii carruur ahaa bay ka haysatay gurigiina way iga guurtay buu dhahay divorce ba may xaraynin buu dhahay isla markiiba muddo markay joogtayba wiil kala guursaday buu dhahay marka wuxuu yidhi ballanka naagaha inaad naag ballan la gasho buu dhahay waa aniga maanta waxa halkaa ay dhigay nin kalena buu yidhi inuu ballan la galo way ballankaa kaga baxdo ma doonayo buu dhahay wuxuu yidhi maadaama aniga ay dhibaatadan igu dhacday ma doonayo qof kale oo Soomaaliya inay intii xaaskiisu siyaasadayso isaguna uu yidhaahdo naagtan aan jeclahay oo wax kasta u sameynaya naftaada haddii la yidhaahdo bixi waan bixinaya ma dhici karto wuxuu saas igu dhacday xanuunkaasaan la noolahay dhibaatadaasaan la noolahay inta adduunka iiga hadhayna noloshayda ka hadhayna dee wuxuu dhahay saasaan haanaya marka wuxuunu dhahay in gabadh dhalinyaro ah ma guursan karo caadigeysni mar dambe gabadh dhalinyaro ah ma guursan karo inaan qof dee hooyo ah oo waayeela inaan iskala noolaado waa wax dhici karta buu dhahay laakiin gabadh kasta waxay u baahan tahay buu yidhi inay haddii la yahay ilmo siinayo inay ilmo dhasho marka wuxuu dhahay aniga gabadh dhalinyaro ah waanu istaynay buu dhahay khalad baana sameeyey naftaydii ka sameeyey inaan maqlo may ahayn inaan maxaan ku idhahdaay arrimaha noocaasa aan isku sameeyo may ahayn wuxuu dhahay habeen iyo maalin qaracan iyo dhibaato iyo oohin iyo murugo ayaan la noolahay buu dhahay iyadiina nin kala qaba ilmahayga waan soo booqdaa buu dhahay umana sheegin buu yidhi dee mar haddii aan iyaduna warqadihii divorceka xaraynin ana ma dacweynin buu dhahay farahan ka qaaday sababtay tahay qaladka anaa galay buu dhahay iyadu maanay gelin qaladka anaa galay buu dhahay anaa arrimahan diyaariyey marka wuxuu yidhi si baan faraha uga qaaday marmar baan ilmaha soo booqdaa buu dhahay laakiin waxaan ahay buu dhahay very disappointed baan ahay marka wuxuu yidhi waxaa jira oo arrintayda ugu soo gudbinaya oo aan doonay inaan hadlo inay rag aniga oo kaliya jiraan oo haweenka aad u jecel oo waxay yidhaahdaan hala sameeyo ama ka naxaaya haddii dhakhtarku yidhahdo caynkana sidanay noqonaysaa ka naxaaya oo isagu naftiisii u biimaynaya buuri oo shoolada ku dhacaaya marka wiilka walaalkeena arrintaasaa qabsatay waana arrin xanuun badan anigu xaqiiqadii markii uu ila hadlaayay horta waan qaracmay waanan maagay canaan aad u fara badan baan ku idhi hana raalli ka noqdana laakiin de waa ku qabsatay hadday ku qabsato maxaad ka odhan arrintani way dhacday mana soo noqonayso walaalayaal laakiin usoo duceeya in ilaahay maaragtay caafimaad siiyo iyo gabadh kale oo waayeelahoo nolosha ay isla qaataan oo maaragtay ay isweheshadaan ilaahay siiyo labadiisaa gabdhood ee yaryarna ilaahay ha u barakeeyo marka inankaas saasaa ku dhacday aad iyo aadna waa ugu xumahay markaa walaalayaal inamada Soomaaliyeed inta u socota inay arrimaha noocaas sameeyaan ha sameynina ha iska dhigina neef geela oo ku sheegtay wiilkaas oo tii koran baa tahay bay tii koranka de maxuu ahaa koranku neefka geela ah ninka ay iskaga dhex jira geela kale iskaga dhex jira ha noqonina walaalayaal
ka yeelina naagaha wax walba walaalayaal ha ka yeelina niman ragaa tihiin war hadday dhimato maxaa idinka galay hadday dhimato naagtiinu ragga naagtiisu maba dhimataa layidhi ninka naagta maba dhimata baa layidhi hadday dhimato mid kale helaysaa oy kaa hormarto ilaahay ha u naxariiso undhe laakiin naftiina ha u biimaynin oo dhalmada ha iska saarina idinku muxuu wiilkan iminka leeyahay ciil maan qabi lahayn buu yidhi xitaa dhakhtarku wuxuu igula taliyey oo aan ka diiday buu yidhi in la ii seef gareeyo ilmo oo la igu hayo meel la igu hayo dhala ah oo aan bil walba ka bixiyo maxaan ku idhahdaaye caafimaadkooda meesha lagu haynayo lagu korinayo lagu hayo xitaa intaas way caawin lahayd buu dhahay haddii aan meel soo aan dhigto way caawin lahayd buu dhahay oo markuu dhakhtarku ugu yidhi ma kuu seef garaynaabaa laygu dhahay buu yidhi xitaa ilaa 4 iyo 5 ilmood ma kuu seef garaynaa oo ma iska bixin kartaa dhaqaalaha bil walba kiradooda iyo caafimaadkooda ilaa wax meel lagu shubay waa in maxaan ku idhahdaaye laga ilaaliyaa wixii lagu shubi lahaa iyo bakteeriyada wixii ka dili lahayd lagu ilaaliyaa meesha oo freezinka la geliyaa la freeze gareeyaa lacagta dhaqaalaha ma awoodin buu dhahay aan maxaan ku idhahdaa ukuntayda aan ku seef gareeyo buu dhahay maanan haysanin guriga kiradiisa baanaan iska bixin karaynin buu yidhi macda looba wax meel lagu shubay oo maba aaminsanayn buu dhahay xitaa ciil maanan qabi lahayn buu dhahay xitaa haddii aan ogahay maxaan ku idhahdaa aan markaa aan taladayda ama aan qof kale u gudbin lahaa buu dhahay oo Soomaaliya oo ka naxaya marka والله أدبنا قحمها والله أدبنا قحمها وقيرة واي ولا ليال والله بالله قيرة ويان وحنا وكلا دباتة ويان ناقها وحلا يسكوها ليه ما مركز وكلام دو مركز وكلام دو عنانتها مركا ولا ليال هلا يسأل عليو أو هلا يسك إلى عليو قفت كل النور يان وحول بلغي يلي وح كستيان لغي يلي رجونا ولا ليال وتشلع رج بدن وتشلع سنبه تشري oo talada markiiba go'aanka gaadhay markiiba go'aan degdeg gaadhay iska ilaaliyo walaalayaal go'aanka degdeg gaadhaysan naftiina wax yeelay hadhowtad murugo iyo ciil aad ku nooshihiin aad ku noolaanaysiin mar dambe wiilka walaalkeena ha loo soo duceeyay hadalka badin maayo haddii aan markii hore canaantayna raalli ha noqdo ha loo soo duceeyo walaalayaal aad iyo aadna wada mahadsantiin sad videogan ula socoteen aad u fiirsanayseen haddaad igu cusub tahay subscribe suubi igu soo darso si aad u aragto videoyadayda kale ee soo socda haddii kalena thumbs up inshallah. Thank you for watching. I'll see you in my next video. Assalamu alaikum.